bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum. Filimkan waxa uu ku bilaabmayaa Ridwaan Khan oo ah doorka uu Shahrukh Khan filimkan ku matalayo kaasoo loo diidayo inuu galo gudaha Mareykanka. Kadib marka ay shaqaalaha madaarka qoonsanayaan magaciisa muslimka ah iyo muuqaalkiisa Aasiyaanka ah. waxaana ay sheekadu ka sii daraysaa marka uu sheegay inuu u socdo la kulanka madaxweynaha Mareykanka si uu ugu sheego inaanu argagixiso ahayn. Tani waxa ay sii xoojinaysaa shakiga ay markii horeba shaqaaluhu ka qabeen inuu argagixiso yahay. Ridwaan Khan waa wiil muslim ah, xanuunsan maskax ahaan, kaasoo qaba xanuunada maskaxda mid ka mid ah oo lagu magacaabo Abber syndrome. waa xanuun keenaya inuu ka cabsado meelaha cusub, midabada qaar, codadka qaylada ah, sidoo kalena ma fahmi karo hadallada sarbeebta ah ee la soo gaabiyey ama aan tooska loo fahmi karaynin. laakiin marka intaas laga yimaado, waa nin caqli badan oo awoodo inuu waxyaabo badan xal u helo. taas ayaa sababaysa in hooyadii ay u keento macallin si gaara wax u bara. kadib marka uu cunsuriyad iyo dhibaato joogto ah kala kulmo ardayda ay iskuulka yihiin, meelaha ugu horeysa ee ay maskaxdiisu ku soo baxayso waa marka isagoo wiil yar ah oo aan qaan gaadhin uu xal u keenayo biyo buux dhaafiyey guriga macallinkiisa hortiisa. intaas wixii ka dambeeya waxa uu hagaajinayaa wax kasta oo mashiin kasta oo xumaada, taasoo ay ku jeclaanayaan dadka ku nool tuulada uu joogo maadaama uu mar kasta ka caawiyo wixii xumaada. dhacdooyinka filimka ayaa sii soconaya, waxaana geeriyoonaysa hooyadii, taasoo sababaysa inuu u guuro waddanka Mareykanka una tago walaalkii oo halkaas ku nool, kaasoo isna shaqo ka siinaya shirkadiisa qaybta iibka iyo suuqgeynta. waxa uu la kulmayaa gabadha Hinduuska ah ee lagu magacaabo Mandira oo ah doorka ay Kajal ku jilaysa filimka, oo ah hooyo carmal ah oo haysata hal wiil. gabadhaas ayuu u qaadayaa jacayl waali ah, iyaduna way jeclaanaysaa, isla markaana waxa dhacaysa inuu guursado iyadoo walaalkii ka soo horjeedo guurkooda, maadaama isaguna yahay muslim gabadhuna Hinduus tahay. Ridwaan Khan nolol qurux badan oo cusub ayuu kula noolaanayaa xaaskiisa cusub iyo wiilkeeda, ilaa laga qarxinayo labadii dhisme ee dhaqaalaha caalamiga ahaa ee Twin Towers dhacdooyinkii 11 Sebtembar sanadkii 2001. waxaa faafaysa cunsuriyadda iyo dhibaatada lagu hayo muslimiinta. gabadha uu walaalkii qabo ayaa laga bixinayaa goobta shaqada. saxaafadda oo ugu daranna weeraro qaawan ayay ku qaadaysaa muslimiinta degan waddanka Mareykanka, taasoo sii kicinaysa shacabka gadoodsan ee aaminsan in muslimka oo dhami ay argagixiso yihiin. ugu dambayna waxay arrintani sababaysaa in la dilo Mandira wiilkeedii yaraa oo ay cunsuriyad ahaan u dilayaan arday ay iskuul yihiin. geerida wiilka yari waxay sababaysaa in Mandira iyo Ridwaan ay isku dhacaan, waxayna Mandiri ku eedaynaysaa inuu isagu sabab u yahay geerida inankeeda. haddii aanay isaga guursan lahaynna aanu ilmaheedu qaateen magaca Khan oo ah magac muslim, waqtiganna aanay ku dhici lahayn wixii ku dhacay. cadhadeeda ayaa sii laba jibaarmaysa, waxaanay u adeegsanaysaa ereyada cunsuriyadda ah ee ay Ameerikaanku ku ganaan muslimiinta. waxaa tahay muslim, muslimiinta oo dhanna waa argagixiso. isna waxa uu ugu odhanayaa si kalsooni leh, magacaygu waa Khan, argagixisana ma ihi. waxay ugu warcelinaysaa u tag madaxweynaha Mareykanka oo ka soo dhaadhici inaanad argagixiso ahayn. sidaas ayayna kaga eriyeysaa guriga, maadaama aan xanuunka maskaxeed ee haya u saamaxaynin inuu fahmo hadallada aan looga jeedin sida ay u yaalaan. si dhab ah ayuu u qaadanayaa hadalkeeda, wuxuuna gelayaa safar dheer oo uu rabo inuu ku tago Washington DC si uu ula kulmo madaxweynaha Mareykanka uguna sheego inaanu argagixiso ahayn. qaybaha dambe ee filimka waxaa loo daawan doonaa halganka adag ee uu mari doono Ridwaan Khan, dhibaatooyinka uu kala kulmayo ciidamada dambi baadhista, inuu la kulmi doono madaxweynaha, iyo in kale xaaskiisu macafin doontaa iyo wixii la mid ah. haddaba maxaa laga baran karaa filimkan? filimkani waxa uu isdul taagayaa qadiyadda argagixisada ee shaambadda ku noqotay muslimiinta, gaar ahaan xilligii la qarxiyey saraha mataanaha iyo dhibaatooyinkii bilowgii qarnigan. waxa uu ku tusayaa wejiga xun ee saxaafadda iyo sida ay fidno kasta u abuuri karaan iyagoo danahooda eeganaya. waxa uu ku dulgeynayaa sida muslimiinta loogu faquuqay gudaha Mareykanka xilligaas iyo xaaladihii adkaa ee ay la kulmeen, gaar ahaan dumarka, iyo sida weerarada loogu soo qaaday xijaabkooda. dhanka jilayaasha, Shahrukh Khan oo hogaamiyaha filimkan ahi waxa uu la yimi mid ka mid ah qaabjilinada abid ugu wanaagsan waayihiisa fanka. sanadkii 2010
waxa uu ku qaatay bandhigiisaas badi abaalmarinaha ay bixiyaan shirkadaha kala duwan ee gudaha Hindiya oo ay ugu muhiimsan tahay jilaaga ugu fiican ee ay bixiso shirkadda Filmfare. Kajol oo xaaskiisa ku matalaysa filimkani iyana kama yareysato Shah Rukh Khan jiliin ahaan waxayna uga soo dhalaashay doorkeeda si heer sare ah gaar ahaan muuqaalada qiirada ah ee geerida inankeeda. Isku soo wada duubo filimkani waxa uu xambaarsan yahay fariin tayo leh taasoo faham fiican ka siinaysa cunsuriyadda ay muslimiintu kula kulmaan Mareykanka. haddaba haddii aad wax fakar hore uga haysan waa filim aanad ka qoomamayn doonin saacadaha aad daawanaysid. gabagabadii haddii aad filimkan daawatay nala wadaag sida ay kula ahayd fariintiisu. aad baa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.